hebel hadda isku dhacdiin wuxuu dhahayaa wara subscribe ninkaas ka qaado laga laaban hebel isku dhacdiin inta aniga ku mataqana ku wareejiyay kala soo laabta ma hataa ku wareejin hataa adoo aan noqday hadda qof isdagaashin inta waa dadkii taageeraya ka soo laabta insha Allah ta'ala waxa weeyaan waxa idina youtuberada Ethiopia ugu xisaabtamaysaan hadii soo jigjigo iyo gudan Ethiopia aadiyad marka Nero Kenya waan ili jooga Malaysia waan ili jooga xagaan ina dadku yarataan Soomaali anaga idin joogna marka insha Allah ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب تقييمها يقايها نجا مدن أنكو صاحبنا برتن يوتيوب كإذا جاء ميديا وحن لنا هاي أما إذن لنا هاي ملك استوى جوكتان وندي سلام لنا ما أنت وحن يدي بدنا مقال عصب وحن مرتي صاحب قيمة بدن وآدو قاليا واتقنا وريراش وإذن سلامي أصحابتا إذا جاء صاحبك أحمد إذا جاء ميديا نرتي هذا ونقول فرح سنة إن جنال كيسة كسوة موضوع يعني شرف بيتاي وريه سري my brother حلايا هي وغلاقا بحنا يوتيوب سيحوق قولوا أصحابتا هذا وسلامي يا جعل أصحابتا هذا انت ريراش ميديا تقانا وحلايا هي جنال كينوا سبسكرايب كسارة إن شاء الله تعالى وحويا waxaa idina youtuberada Ethiopia ugu xisaabtamaysaan hadii soo jigjigo iyo gudan Ethiopia aadiyad marka Nero Kenya waan ili jooga Malaysia waan ili jooga xagaan ina dadku yarataan Soomaali anaga idin joogna marka insha Allah ta'ala yaa dad naga dhigi karo marka kor noo qaadi karo Soomaalida aadiyad okay channelka saaxiibkay ila jaa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala inuu noqdo mid kamid ah channelada ugu waaweyn Okay, hay sahib. Okay. Markaan ku soo dhaweynaya Riiraash, saad ku soo aragteen title-ka ama mawduuca inoo saaran shaashada. Waxaan maanta ka hadli doonaa maxaa u dhaxeeya ama farqiga u dhaxeeya YouTuberada caalamka ee aan Soomaalida ahayn ee kuweena Soomaalida ah. Sababtoo waxaan dareemaynaa caqabado cad oo muuqda oo u baahan in wax laga qabto oo haysta YouTuberada Soomaaliyeed. Maxay yihiin caqabadahaasi? Muxuu yahay xalka looga gudbayaa caqabadahaasi? barnaamijkaasi iyo su'aalo dhowr ah waxaan ka wareysan doonaa Riiraash oo maanta la fadhiya horta Riiraash su'aasha ugu horeysa waxay tahay bal ka waran muxuu yahay farqiga inoo dhaxeeya nimanka aan Soomaalida ahayn iyo Soomaalida sababtoo ah waxa muuqda farqi aad u weyn صح horta simply wax si fudud ah kugu sheego YouTube ka farqiga Soomaalida iyo ajaanibta u dhaxeeya waa farqi aad u weyn hal baan mas'uulka hashi mas'uulka ka waxa weeyaan population-ka Soomaalida aad u yar yaraan kama hadlayo shacab ahaan dad naga yaraa jiro laakiin population-ka Soomaalida aad aan u isticmaalnay waliba imika hadda ku soo bateen waxa aad ku isticmaalana waa dhalinyaro yar caqabadaha kale jiraan waxa tahay oo ku kala duwanahay YouTuberada aseeto luqadda ومتوقع من سوين باللغة international أي اللغة متقنة قاسة نينك هندي كمان توحى أولا إنه إنجليزي سودانو وشيكية سودانو وهذا نينك سواحلي وحى أولا إنه برنامج كسلان إنجليزي كده لكن الصومالي دا أنت ديبدو كل دولة تمو كده دولة دينا كله أفريقيا جوكتو أنت بدنا نحاول كسرنا لغة الصومالية تاسو لغة الصومالية مركا وحكو جود بنيسنا ومدة وحكو جود بنيس وكوبان تعمل أديات ووضت كوبان أو متقنة أو أنت بقيت تتابع مركا الصومالي أيضا مركا هو population كده أدو يرى هذا أنت سوشيال ميديا أما يوتيوب كاستعمال شاء أما دعوته ومركا اللوكال قريبين يرنقونيسو صح مركا دعواتها أقوين أنا كلها تهتم كريم وحات عدين كوجو فيلم وحركة نين أجنبية أو سواحلي أما هندي أما عرب لغة دي عربية أما سوما أما إنجليزي كسوق هذا نيا فيديوهات إن عنك عن رياكشن كبحينينه فنانين تاني يكبحينيا Soomaali dad xagga soo ajaanibtiisa sidoo kale to soo waxaan qorayaan waa dad badan isku helaya dad badan isku helaya tii kale oo ku darsanaya Soomaalidana waa idan way raacaan dhibaatada ugu weyn waa taas soo hal mid baan raaw marka inaan ku zaaidiyo hadii horta qofka bini aadamka dadka asaa kasban kara soo macaa yeelan kara mataqana bulsho jecel oo mar walba ku xiran laakiin waxa dhici karta qofka isagoo cusub inuu barnaamijyada soo gudbinayo yihiin barnaamijyo aad u qurux badan oo wanaagsan ay yihiin bulshada iyagu inay noqdaan dadka go'aaminaya qofkay raaci lahaayeen salahan qofka aad ku xirantahay haduu ku yiraahdo halka aad waa talo way fiican tahay in dadka la caabiyo laakiin inta taa la gaarinba YouTube daabata waxa fiican markaad aragto ninkan in talentigiisa fiican yahay inta lagu amrin ama talada lagu siinba soo ma mudna inaad u go'aan ka qaadato tirada ninkan talentigiisa way fiican tahay
kaalintaada ka qaado dadka isku ma jira dad badan jiro aniga dadka badan ii saaray horta ana cidna ima soo haysin ka shaqeeyaan ma taqaan heer ka dadka soo gaarsi ku rafaaday habeen subscribe amaanayna aad iyo aad marka dad si sax ah kuugu soo biiray way jiraan laakiin way yiri laakiin macnaha waxa ka badnaanayso share out ka markii lagu sameeyo youtuberada waaweyn inay share out ku weydiidaan runta fiican ma ogola marka qaar qofka ay ka maagaan dad way jiraan laakiin ma badna aad iyo aad marka cilada kale jirta ku sheego YouTube markaad rabtid inaad wax wanaagsan ku soo bandhigtid oo dadka anfacayo aad iyo waxtar leh muddo kugu qaadanaysaa in lagu barto soo waqtigood u baahan tahay laakiin hadda buuq qalaas ku soo gashid iyo qajjac iyo mataqaana aad xitaa shakhsiyadaada dhaawac u geysato iyo dad iyo been sheeg dad kale inaad dulmiso waxaad tahay nin mataqaana number 1 ka YouTube laakiin hadda sharaftaadii iyo sharafta dadka ilaaliso aad tiraado dadka u faa'iideeyna laga maanta wiilka dhalinyarada yaa hormar badan sameeyay laga yaabo dhalinyarada YouTube ay arki doontaa qaybta audience iyo qof walba markuu fiirinayo average ka ugu badan waa 18 ilaa iyo 35 marka daadaas ay tan heesay dhigastaa music filmaanay dhigastaa iyo dad isku dhagan iyo xaraabaad iyo challenge iyo dadkaas u baahan yahay iyo prank dadkaas u baahan yahay marka aad soo bandhigtid video qaabka loo edit kareeyo marka aad soo bandhigtid talo tusaale soo bandhigtid daadaas ma barabaan laakiin mid ku fiican tahay dadka heshid ee ku soo raacay ee kugu ogolaada taas way ka adkaysi badiyeen dadka kan kala raacay maxay yahay kaas qof hadii biri hadhow isku dhacaan way kala laabanayaan subscribe laakiin aad isku dhacmo kugu dhacayo sababtoo nimankan sababtu kugu soo raacay waxay tahay faa'iidin wax ka faa'iido waxa soo bandhigtayna waa wuxuu mahdiyay uu isiri ninkan wax badan bad ka faa'iideysay la soco soo way hadaba waxa rabna ugu dambeyn maxaa looga gudbi karaa caqabadahaasi caqabadii waxaan tilmaanay dhibka jira inuu yahay Soomaalida in population-keedu yar yahay luqadaha wax ku gudbina inay yihiin luqad Soomaaliya ay Soomaalida kale dhageysato nin Hindiya ama wadamada Aasiya inuusan fahmi karin usan wax danaba kale maadaama luqada Soomaaliya tahay qof Soomaali kali ay qusayso taana ay sababto in ajaanibta ay naga hormaraan sidee baan marka youtuberada Soomaaliyeed ee meel walba joogaan ay u noqon karaan ama mataqaana u horumarin karaan youtuberadooda si ay u noqdaan ama kuwa lamida kuwa caalamka ama ka sareeyaba adoo aragtidaada sax niyo aragtideeda hadii aan ku cabiro horta niyo aalada YouTube kala leeyahay waa bad qofka rabo inuu hormaro ama soo gala rabo dhinac rabo ka gali karaa dulqaadana wax looga qaadaa inuu adkaysiyo waliba marka Soomaali tahay dulqaada wax looga helaa waxa markaan ku leeyahay waxa weeyaan horta qofka YouTube ka soo galayo waa inuu ku tala galaa wax uu yaqaan inuu dadka soo gudbin karo awoodo aadiyaad aaminsan in dadku soo raacayaan kaliya ma ahan YouTube ka in wajiga dadka la tuso wajiga waa qarsan kartaa ogaansho janaalada ugu waaweyn oo kamid yahay aan weligiis wajigiisa la dadweynaha janaalada ugu waaweyn oo kamid yahay aadiyaad ma garatay wadana dadka ugu bataqana subscribe ka views ka badan ayuu kamid yahay marka aad soo galaysid turo badan la kulmaysaa horta caqabadaha aad sheegtay inaad ajaanibta la tartanana hada u soo laabta taas waxaan ku gaari karnaa marka luqadda laga tago marka anaga creative la imaano wax hal abuur waxaa jira youtuber waxaa jira aan hadlin codkoodana aan soo gelinin oo intaas oo milyan ee daawato waxay sameeyaan farsamooyin sameeyaan waxay gacanta ka sameeyaan ama farshaxan ha noqoto waxa daawanayso 2 milyan oo muuqaalkaas wuxuu ku saabsan yahay kaliya gaari cunto la dul marinayo Coca-Cola wax burnayo dhaxda laga gelinayo waxyaabo maad oo taraq badan oo meel la shidaayo inta lagu gubo ilaa diyaag bal lagu karinayo iyo dhowr milyan daawanayso ninka ma hadlo qof yahay lama oga wana daqiiqadii waa malaayiin ma garatay marka in creative la imaano way tahay dulqaadna sameeyno dadka caalamka soo kala tartami karnaa hadda anaga wax badan iska bedel xagga fanaaniinteena Soomaalida runta marka ka hadlo Soomaalida hadda Afrika Soomaalida Afrika waa dadka ugu daawashada badan YouTube-ka maxay yeelay internet-ka aad u isticmaashaa YouTube-ka ayaa ugu daawasho badan taasna waxa ku cadeynayso ajaanibtii oo dhan waxay bilaabeen inay heestaa Soomaaliya war cadaan Afrikaantu waa dhaafnaa annagiiba in laga dhax kulumaysto la bilaabay marka Soomaaliya yaalay xasdiin qofka walaalkaaga waxaan qofka walaalkaaga subscribe-ta meesha cas waxba kaama dhibayso hadaa doonto gambaleelka baa furanay dhab ugu qabo yaan mataqaana war ugu dhufo qofka like u sii saar sii daawo ugu dhufaa ha sugin in YouTuber caana inuu ku yiraahdo hebel u tag taana way fiican tahay ma xuma in la is hormariyo laakiin waxa ka fiican intaan taa la gaarin ka horba
hebel hadda isku dhacdiin wuxuu dhahayaa wara subscribe ninkaas ka qaado laga laaban hebel isku dhacdiin intaan aniga ku mataqaana ku wareejiyay kala soo laabta ma hataa ku wareejin hataa adoo aan noqday adoo qof isdagaashin inta waa dadkii taageeray ka soo laabta team way baash dadka Soomaalida qabiil ka dhigeen bi team loo baansan sababta aan Soomaalinimo marka wax ka weyn hadda oo aad ku qanci kartaa ma jiro haddaad aragto shakhsi talantigiisa iyo mataqaana waxaan ka wadaa al abuurkiisa iyo wuxuu soo bandhigay hadii ay yihiin waxaad ka heshay oo aad mataqaana aad tiri waa okay subscribe ugu dhufo صح si aan ula tartanno umadaasi adduunka ku nool aan u noqono mataqaana dad isku xiran laakiin intaad qofkii muuqaalkiisa daabato adoo awoodin aad baashja ku soo aastiraado ka socba so riilaash waa soo gabagabeynayna muuqaalkeena waadna ku mahadsan tahay talada guud ee aad siisay youtuberada Soomaaliyeed iyo umada Soomaaliyeed ee daawadasha ah waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qiimaha leh ee aad nala qaadatay waan ku salaaminaa riilaash aad baad u mahadsan tahay baad u mahadsan tahay maantii waxaan halkaas ku soo gabagabeynayna muuqaalkeena quruxda badnaa ayaan maanta topiga uga dhignay sidee bay u horumari karaan youtuberada Soomaaliyeed muxuu yahay waajibka saaran shakhsiga Soomaaliga si ay u horumaraan youtuberada wax badan baan ka faa'iidnay saaxiibkayga riilaash waana mahadsan yahay intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan idin leenahay asxaabay taladaan idin siinay idinkoo qaadanaya meesha casaanka ah jakusi subscribe like iyo share kana waan idinka sugnaa aad baad u mahadsantihiin halkaasna waxaan noogu eeg muuqaalkeena fi amaan illah